waxaan joognaa degmada Faraweyne oo soo gaarsiinay raashin qaybinta aan ka wadnay gobolka Maroodijeex runtii raashin qaybinta waxa soo bixisay hay'adda samafalka ee King Salman Foundation oo Jamhuuriyadda Soomaaliland muddo dheer xiriir la lahayd hay'addan ay si dhow wada shaqeeyaan oo uga mahadnaqayno wada shaqeyntooda iyo garab istaaga dadkeena jilicsan waxa kale oo mahadnaq weyn u dirayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo runtii siyaasaddiisa iyo ballanqaadkiisu waa in dadkeena la garab istaago xilliyada abaaraha iyo xilli kasta jilicsan sidoo kale waxaan mahad celinayaa gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga Afrika raashinka qaranka Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Duxood iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdiraxmaan Xamdulo qayb weyn ka ahaa qorsheynta hawshan in ay raashinkan soo gaadho guud ahaan gobolka Maroodijeex sidoo kale waxaan mahadnaqayaa gudoomiyaha iyo barasaabka gobolka Maroodijeex Professor Axmed Maxamed Cadaad oo isaguna qaybinta raashinkan iyo inay soo gaadho degmooyinka gobolka Maroodijeex runtii shaqo weyn ku lahaa sidoo waxaan ugu dambeyn u mahadnaqayaa maamulka degmada Faraweyne ugu horeeyay gudoomiye Faysal iyo gudoomiye ku-xigeenka Maxamed Xasan iyo xogeeyaha runtii si wanaagsan oo la shaqeeya Faraweyne runtii maaha markii koowaad ee raashinkeeno wada shaqeyn joogta baan leenahay waxaan uga mahadnaqayaa maamulkaas inay dadaal badan geliyaan sidii dadkooga danyarta wax soo gaari lahaayeen oo mar walbana baahi kasto ka jirta degmada ay uga jawaabi lahaayeen maanta waxaan ku wareejinaynaa guud ahaan 300 oo qoys imikana waxaan joognaa xaruntii lafta Faraweyne oo ku wareejinay 140 qoys maamulka xarunta Faraweyne heer tuulaheega iyo odayaasha kale aad baan ugu mahadnaqaystay inoo la shaqeeyeen halkan waxaan kaga marxaati furaynaa in deeqdaasi gaadhay dadkii la soo qoray aad baan u mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hay'adii keedka raasinku waynu soo gaarsiisay hay'addu samafalkii wixii bixinayay haddaanu lafta Faraweyne nahay waynu degmada Faraweyne ka tirsannahay waa lana soo gaarsiiyey waxaana lana soo gaarsiiyey 140 xabal lana soo gaarsiiyey sidaa wixii saaka deeqdii la bixinayay saasay noo soo gaadhay saasay noogu dhantahay marka labaad waxaynu u mahadnaqanaa hay'adda keedka raashinka qaranka ee Norford iyo hay'adda muxuu ahaayay King Salman oo ina soo gaarsiisay maanta taakuladan abaaraha ee soo gaarsiisay degmada Faraweyne guud ahaan 300 qoys hadda waxaynu ku sugannahay tuuladii lafta Faraweyne oo ka tirsan degmada Faraweyne oo iyadana maanta halkaan aynu ku qaybinayno 140 qoys ay raashin soo gaarsiisay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda keedka raashinka qaranka oo ugu horeeyaan madaxdoodu oo halkan nagala joogo muxuu ahaayay isku duwihii muxuu ahaayay gobolka Maroodijeex waxa kale oo mahadnaqayaa isagana barasaabka gobolka Maroodijeex waxa kale oo mahadnaqayaa isagana madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii gargaarkaasi markii xaaladda abaareed ama duufaanadu ay ku dhifteen tuuladan muxuu ahaayay lafta Faraweyne sidii ugu dhaqsaha badnaa cabashadeeda amba aan u gudbinay sidii ugu dhaqsaha badnaa uga soo jawaabay xilligii ku habboonayna markaasi muxuu ahaayay keenay waxaan leenahay cid kasta oo markaasi ka qayb qaadatay oo madaxweynaha qaranku ugu horeeyo aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa waxaan leenahay insha Allah degmadu inteeda badan marka la eego sanadka waxay ku jirtaa xaalad abaareed waxaan leenahay markaasi qaranka oo maanta isku duwihii gobolku nagala joogo insha Allah de kulli meelo badan oo soo maray indhihiisa ku arki doona waxaan leenahay intani in ka badan baa waan idinka suganaa insha Allah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxda hay'adda keedka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo baahidii aan u gudbinay si degdeg ah uga soo jawaabay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin marka koowaad ilaahay baa mahad iskale in siiyay nabadgelyo iyo caafimaad mar labaad waxaan u mahadnaqayaa hay'adda Norford oo runtii codsigaygii ka soo jawaabtay si degdeg uga soo jawaabtay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa isuduwaha gobolka Maroodijeex ee hay'adda Norford Mr. Cabdixakiin oo runtii ah shakhsi aad iyo aad u firfircoon isla markaana ka Maroodijeexan waliba ka Faraweyne ahaan si fiican oo qalbi furan oo la shaqeeya runtii aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa hay'adda King Salman oo deeqdan inoo soo gudbisay oo deeqdan inooga timid guud ahaan waxaan kaloo u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi oo runtii siyaasaddiisu tahay in la taakuleeyo dadkeena tilicda san leh runtii waxaa kaloo halkan uga mahadnaqayaa odayaasha deegaanka lafta Faraweyne oo ugu horeeyay gudoomiye Xirsi oo si kaliya laaba si ballaaran noola shaqeeyay hawshan intii aan ku guda jirnay iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa aad baad mahadsantiin baan leeyahay waxaan rajaynayaa
inaynu sidaa iyo si ka fiican u sii wada shaqayno mar labaad waxaan halkan waxa muhiim ah inaynu ilaahay barino oo aynu maxaa ahayd ilaahay unbaa dee gacmihiisa aynu ku dhargi karnaa oo baahideenna ha qabtiri kara runtii waxaan ku boorinayaa dadka deegaanka inaynu ilaahay barino si maadaama sanadkan aynu ku jirnaa ay jirto abaar baaxad leh oo guud ahaan dalka haysa hase ahaatee degmada Faraweyne qaybta galbeedka oo kale ay aad u sii abaar baani ka jirto oo matalan biyihii oo kale ay yihiin gabaabsi waxa kale oo iyaduna jirto halkan baaq dheer uga jeedinaya wasaaradda waxbarashada oo horena aanu baaq ugu dirnay imikana ugu celinayno una tagnay in iskuulkii lafta Faraweyne uu roob daay 31 May xilligii imtixaanka lagu jiray roobkaasi uu dabaysha ka qaaday iskuulkaas oo maanta iskuulkaasi wali jiingadihiisa aan jiingadii la saarin waxaanu rajaynaynaa wasiirka wasaaradda horumarinta waxbarashada inuu si degdeg uga soo jawaabo maadaama iskuulkii lagu noqonayo hadda oo ay taagan tahay waqtigii iskuullada lagu noqonayay si degdega waxaanu codsanaynaa wasaaradda waxbarashadu oo aanu cod dheer halkan kaga sheegaynaa in wasaaradda waxbarashadu si degdega uga soo jawaabto baahida iskuulka weliba dayactir wuxuu u baahan yahay ballaaran arday badanna way dhigataa runtii dad badan baa iskuulkan ka soo baxa iskuulkan waa iskuullada ugu waaweyn degmada Faraweyne runtii kaalin muhiimana ka qaata soo saarista ardayda ama maxaa hayday ubaxa dalka waxaanu ku codsanaynaa oo ku celinaynaa in ay si degdega wasaaradda waxbarashadu uga soo jawaabto baaqa aan halkan ugu dirayno horena aan ugu dirnay imikana aan ugu celinayno